بسم الله الرحمن الرحيم. maanta waxaan qaadanayna hadulaha idmo cashirka 12aad kaasoo ka sheekeynayo qaabka loo sameeyo shahaadada ama frameka shahaadada. horey waxaan usoo qaadanay ilaa 12 cashirood oo aan filayo inaad ku raaxaysato ama soo fahantay ama aad soo qaadatay. waxaan qaadan doonaa maanta hadulaha idmo cashirka 12aad oo ah certificate ama qaabka loo sameeyo shahaadada marka la sameynayo inta badan waa la qurxiyaa waa la hagaajiyaa frame ama waxa loo sameeyaa kalra kala duwan oo qurux badan. marka ila soco waxaan rajeynayaa hadulaha idmo cashirkan inaad ku raaxaysan doonto ama ka faa'iideysan doonto uu noqon doono cashir aad ku anfaco. waxaa soo furaysaa programka Word-ka. markaad soo furato kadib waxaad imaanaysaa qaybtan ay ku qoran tahay page layout gaar ahaan orientation. waxaad kusoo dhifanaysaa meeshan ay ku qoran tahay landscape markaad doorato halkan waxaa soo yareynaysaa qaybtan hoose menu-ska dooranaysaa. frameka waxaa la rabaa inaad shahaadada afarteeda gees arki karto warqada cadaanka afarteeda gees inay kusoo baxda la rabaa. waxaa usoo yareynaysaa zoomka kadib waxaad kusoo laabanaysaa isla page layout-ki. waxaad imaanaysaa meeshan ay ku qoran tahay page border markaa imaado borderda kuwa qaar waa kuwan oo noocyadan ah laakiin aan qurxanin. qaybtan ugu hoos aarta ku qoran markaa soo furtana nashqado kala duwan heli noocyadan oo kala ah. marka waxay ku xiran tahay nooca adiga aad rabto. aniga hoos aan usoo wadi doonaa waxaan dooran doonaa nashqadan had soo socdo sida nashqadan oo kale way badan yihiin nashqado kala badan aa jiro. anad kan aan ka qaadanaya halkan 12 kan waxaan ka dhigaa 31 oo cabirka ugu weyn. qaybtan automatic ku qorantaan soo furaya waxaan dooranaa mo kala halkan waxaan ka dooranaa hadba kalarka aniga qanciyaan ka dooranaya kadib waxaa leeyahay okay kan okay kale. marka hadda waxa ii soo baxay frameka ama noocana ii soo baxay shahaadada qaabkay noqon doontaa. mar kale waxaan ku laabanaynaa qaybta page border markaan ku laabano saan oo kale waan soo furayaa waxaan leeyahay mo kala kalra badan halkan yaala mid kale aan ka doorana waxaan leeyahay okay kana okay kale kana wuxuu igu soo baxaa qaabkan oo kale. hadaa cabirkana waxaan ka dhigay 31. haddii aad rabto qaabkan oo kale aad dooranaysaa noocan ku noqon doona xogaa qaabira qurxoon noqonaya. qaabka marka dhado waa kana frameki uu soo yari weynaaday qaabira qurux badan noqdo qaabkan ah menu-ska marka iska yareeyo xogaha. marabana halkaas waxay ku xiran tahay frameka adiga aad rabto inaad ka dhigato shahaadada. frame fara badan gudahan ku jiro ka doonto qaado kadib waxaad imaanaysaa qaybta ku qoran tahay insert gaar ahaan word art. waxaa ku soo bixi doona word artida noocyadan oo kale ah kadib mid kamid ah dooranaysaa word artida mid kamid markaad doorato saan oo kale caps looga daaranaysaa halkan waxaa ku qoraysaa marka magaca shahaadada. saan oo kale magaca ku qorto maxadka jaamacadda hadba meesha goobta bixinaysa shahaadada magaceeda waad yareynaysaa in yar xogaa kan waxaa sameynaysaa inaad geeskan usoo jiido geeska markaa yar geyso. qaybta labaad sidoo kale waxaa geynaysaa qaybtan kale geeska intaan oo kale markaa geyso kadib waa soo highlight gareynaysaa. markaa highlight gareyso waxaad qabanaysaa badhanka loo yaqaana control iyo kan loo yaqaano phraseska ama calaamadaha afargeeska oo labada gees ah oo sida markaad sadarka kore xarfaha akhrinayso I O B for ben marka badhanka ku xigo iyo badhanka ku sii xigo labadaas la isticmaalaa. kan yara midigtan isticmaali doonaa wuxuu isoo yara weyneynaa xogaha calaamada farta macnaa isoo yara dhaweynaya zoom ahaan waa kan kale oo B for ben xaggeed xigtana waa yareynta. ama haddii keyboard carabi aad leedahay waa badhanka uu ku yaalo xarafka daalka iyo midka jiinka uu ku yaalo oona u dhow qaybta interta. haddii laakiin carabiisan ku yaalin waxaad ka tirsan kartaa O B for ben markaad joogto badhanka ku xigo oo midig ka jiro iyo kan kusii xigo waa yareyn iyo weyneynta ama soo dhaweynta iyo gaabinta zoomka kuwaasaad isticmaali doontaa haddii laa idmo tilmaamta si fiican u qaado. kadib waxaad imaanaysaa qaybta ku qoran tahay format waxaad ku dhufan text field meesha ku qoran tahay kalrada nooca rabtaa ka dhigan daarata madow aad qaadanaysaa daarata kalrada noocan aad qaadani text outline imaanaysaa marka isla kalarka ay qaadanaysaa si qoraalka uu fuul u noqdo. kadib waxaan sameynaynaa qoraalka markuu saan yahay waxaad ku laabani qaybta insertiga mar labaad. insertiga markaad imaado waxaad soo qaadanaysaa word art markaad soo qaadato kadib waxaad sii qaadanaysaa kuwan meesha yaala word artiyada mid kamid ah. halkan waxaa ku qoraysaa marka certificate markaa qorto kadib waxaa keenaysaa qaybahan oo kale kala baraha ama haddii kale kasoo qaad waxaan ugu magac dirinaa koorsada waxaan leenahay computer certificate maadaama ay tahay shahaado computer tusaale camal. kana waxaan u qaadaa qaybta koraan geena xagga kana sidoo kale u qaadaa qaybta kore asagana xaggan geena mar kale. qaybahan waxaad imaanaysaa format kadib text effects transform meesha ku qoran tahay mar hadaad rabto noocan usoo qaloocinaysaa noocyadan kale hadba waxaa ka dhigaysaa nooc adiga aad rabto ka dhiganaysaa
kana hoos usoo yara qaadaysaa xogaha. waxaa kaloo sameynaysaa qaybta insertiga inaad ku laabato gaar ahaan word art nashqadahan mid kamid ah qaadanaysaa mar kale oo qaybta word artiga halkan waxaa ku qoraysaa goobta shahaadada laga bixinayo wadanka iyo magaalada. mar kale waa soo jiidaysaa waxaa keenaysaa qaybahan kala baraha markaa keentaan oo kale waxaad imaanaysaa qaybta ku qoran tahay insert gaar ahaan shapes markaa imaado waxaad soo qaadanaysaa calaamadda afargeeska ama rectangle-ka qaybta kore ka soo qabanaysaa ilaa waxaa keenaysaa qaybahan kale hoose. saan oo kale marka ka noqoto waxaad imaanaysaa filaarahan saddexda kadib abc da ku dhufani halkan sandy backward ka sii dooranaysaa waxaa ku soo baxay Kismaayo Soomaaliya mar kale aad ku sii dhufani computer certificate mar saddexda ku sii dhufanaysaa. aakhir waxaad imaani shape outline kana ku qoran tahay width geesahan oo soo muujini waad ku laabanaysaa mar kale hadana waxaad siinaysaa colorada kamid ah nooca arta ka dhiganaysaa kan geeskana ka soo yara bixina xogaa si frame-ka u soo yara muuqdo. okay inta markay ku joogto kadib waxaad imaanaysaa qaybtan ku qoran tahay format gaar ahaan shape fill waxaad ku sii dhufani text qaybtan ku qoran tahay qaybtan hoose oo colorada leh text markaa ku dhufato kadib nashqadahan jira sida noocyadan kale way badan yihiin adiga nooca doonta qaadanaysaa. kamarku waa sawirka colorka gudaha mar kale waxaad imaanaysaa page layout meesha ku qoran tahay gaar ahaan page kala waxaad ku sii dhufanaysaa fill effects kadib waxaad leedahay two color qaybta kore soo qaadanaysaa colorada mid kamid ah qaadanaysaa inta waxaan qaadan doonaa sida midka noocan qaybta labaad imaana mar kale midka kale asana noocan aan qaadanay kadib dhibcahan geeska waa isku dhex qasida colorka mar waxay ku noqonayaan noocan oo kale hadda dhibci saddexaad ku dhufato noocan isku yara bedelayaan dhibida afraad sidoo kale hadba nooca adiga arta dooranaysaa aakhirna waxaa leedahay okay. nidaamkan waa qaabka loo sameeyo frame-ka shahaadada sawirka qaabka loo saaro oo kale waxaad imaanaysaa qayb qalinka hadii uu gudaha ku yaalo saan oo kale meel banaankan aad ku dhufanaysaa oo qaybtan oo kale banaankan aad ku dhufanaysaa banaanka markaa qalinka kliksayso oo aad si fiican klik u hubsato meel banaan aad ku dhufato hadii uu gudaha ka yaalo banaanka aad dhagsiiso kadib waxaad imaanaysaa insert gaar ahaan picture markaa imaado sawirka qofka soo qaadanaya hadii desktop-ka uu ku yaalo ama download-ka meesha uu ku yaalo waa soo qaadanaysaa markaad soo qaadato kadib waad dooranaysaa ka soo qaad sawirka ardayga oo kale kamid tahay kan kadib waxaan leeyahay insert markaan qaabkan oo kale ka yara qarsamaya waxaad imaanay wrap text gaar ahaan in front of text kana ku qoran tahay uu soo yara muuqanaya geesaha soo yara jiidi wax yar kuwaas klikta qabanaysaa qaybta kala baraha sawirka ardayga oo kale halkaas aad dhigaysaa hadii geeskan u yahay geeskan aad dhigani kaas waa noocaas qaabka qoraalka gudaha loogu qoro gudaha qalinka dhagsiinaysaa waxaad ku dhufani button-ka midigta right click ala dhagsiinaysaa qaybta muuska kadib waxaad dooranaysaa art text kana ku qoran tahay marka art text qalinka wuxuu ka imaanaa qaybtan kala baraha waxaad dooranaysaa qaybta ku qoran tahay format oo labadan format mid bidixda kadib waxaad dooranaysaa align text tooba leedahay qalinka wuxuu aadi doonaa qaybta kore kadib enter leedahay qalinka wuxuu usoo degaa qaybaha hoos usoo degi doonaa qaybta hoos markuu usoo dego waxaad imaanay qaybta home qalinka waxaad geysanaysaa qaybtan geeska kore oo bidixda kadib farta yara weynaysanaysaa marka wax yar farta markaa yara weynaysato ilaa 26 inta rabtaa ka dhiganaysaa adiga nooca qurxinta fartan ama font size loo yaqaano font face-kana waa soo furaysaa cidida yartaa times new roman oo kale ka dhigani ama nooca farta adiga qadka aad doonayso inaad wax ku qorto halkan waxaa ku sii qoraysaa marka qoraaladii oo shahaado laga baahnaa inaad ku qorto marka shahaadadan waxay cadeynaysaa leenahay qoraalka intaan qoraayo video waan boos gareyn doonaa si uusan waqti dheer nooga qaadanin la soco. okay markaan qoraalka saan oo kale soo qorno qalinka geeskan ku yaala enter leedahay ama labada dhibcood markaa saarayso kale shift labada dhibcood qabanaysaa enter leedahay kadib waxaad imaani qaybta ku qoran tahay insert gaar ahaan table-ka markaa imaado kadib halkan waxaa ka dooranaysaa table-ka laba god oo kale aad dooranaysaa kadib halkan ku qori ardayga waxaa macnaha uu soo bartay waxaan leenahay programka MS Word MS Excel markaan rabo inaan sii badsado table-ka waxaan taabanaa button-ka loo yaqaan tab kuna yaala qaybta bidixda ee keyboard-ka waxaa ku qoran tab hadii qoraalka tabka ka waayo ku qoran waayo laba filaar oo cadaan ah isdaba maraya bidix mid ku kala jeeda ku sabiran la soco tilmaamta kadib MS Word aan qoray MS Excel MS waxaan qori doonaa hadana access ardayga wuxuu soo bartay MS waxaan leenahay MS PowerPoint waxaa kaloo sii qori doonaa qaybtan hadba ardayga intuu soo bartay waxaan leenahay MS Windows halkan MS waxaan leenahay Publisher intaasaan ku keenay adiga laakiin sii wado halkan waxaa muhiim inaad ku qorto start taariikh ardayga uu bilaaway shift laba dhibcood wuxuu bilaabay 1 bisha 1 2021 bilaawan leenahay
space ku soconaysaa xogaa kadib halkan waxaa ku qoraysaa end date ka xilliga uu dhameeyay kowda bisha 8aad 2021 dhameeyay leenahay enter halkan waxaan ku qori doonaa manager sign calaamada yasta apostrophe waxaa laga helaa l marka taagan tahay k l marka taagan tahay shift macnaha laba dhibcood kadib labaas dhibcood kuwa kala ka ku sii xigo kuwaas taabanaysa adoo shift aan qabanin kadib manager sign marka dhado shift aan qabanaysa waxaad la qabanaysaa laba dhibcood hadana shift labada minus oo qaybta kore keyboardka halkan waa meesha la saar la saxiixa maamulaha kala barahan keenay waxa la qoraa hadii macallin uu jiro sidoo kale saxiixa macallinka halkaas waa meesha la saar la sawirka ardayga waxaad imaanaysaa insert shapes calaamadana fargeeska sawirka qaabka loo soo geliyo waan ku tusay ama loogada halkan ardayga sawirka oo kale la qaab teesar ardaygu kugu keenana calaamada saad ku cabiranaysaa meesha sawirka ardayga teesar ku keenay marka shahaadada la soo daawaco kadib teesar ayaa la saaraya kadib halkaas marka lagu qurxinayo lagu hagaajinayo qaabka marka waa qaabka loo sameeyo shahaadada waana 12aad kaasaan ku ekeenina hadulaadmo casharada kale la soco kan inaad fahantood ku raaxaystaan filayaa hadulaadmo ma santahay qaabka loo save gareeyo kala diyan kugu daro waxaad imaanaysaa file gaar ahaan save ama save as inkastoo hore aad soo qaatay save gareenta kadib waxaad dooranaysaa qaybta ku qoran tahay desktop halkan waxaan leenahay marka certificate ama shahaado aakhir waxaad leedahay save